السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تawadayaashada naga daawanaya kanaalka SAA Software waxaad ku soo dhawaataan casharradeennii HTML oo aad kala socoteen kanaalka SAA Software waxaynu maraynaa insha Allahu tacaala waynu halkan kasoo tebinaynaa insha Allahu tacaala casharkii afraad insha Allahu tacaala casharkan afraad waxaynu ku dhigan doonaa insha Allahu tacaala sidaad HTML kaaga u soo gelin karto awriya ama maxay tahay MP3 cod ah sidoo kale waxaanu ku dhigan doonaa sida aad u soo gelin lahayd video waxa kale aynu ku dhigan doonaa insha Allahu tacaala si aad linki ugu soo xidhi lahayd HTML kaaga insha Allahu tacaala saddexdaas title ama saddexda topic ayaynu ku eegaynaa videogeenan maanta insha Allahu tacaala daawasho wanaagsan marka u horeysa waxaanu tagi doonaa insha Allahu tacaala HTML keeni kadib markaynu HTML keeni sidaan u soo kicino laba xorba ayaynu leenahay inaynu tagastiga xagga sare ka marino iyo inaynu xagga hoose ka marino labadaba inaga xor leh marka xagga sare ayaynu ka marinay insha Allahu tacaala ciwaanka u horeeya awriya sidaan u soo gelin lahayn insha Allahu tacaala ayaynu eegaynaa kadib waxaan leeyahay sidii aynu practicalka u samayn jirnayba tag ayaan furanayaa waxaan qoranayaa awriya markaan qorto controls kadib waxaan leeyahay tagi ayaan xidhanayaa hoos baan laba jeer uga degayaa tag kale ayaan furanayaa awriyadii ayaan ku soo xidhayaa markaasi waxaan leeyahay parameter oo ah kii lagu soo xidhayay awriyadii ayaan xidhanayaa kadib waxaan leeyahay tag ku soo xidh halkaas ayaan tag kale ka furanayaa labada dhexdooda kadib waxaan leeyahay source ayaan leeyahay src oo iyadana source loo soo gaabiyay equal waxay la mid tahay ayaan leeyahay double rotation kadib halkaas ayaan waxaan soo gelinayaa insha Allahu tacaala codka anigu waxaan u soo rartay markaasi halkii aan ku sameynaynay halkan practicalka ku sameynayay ama uu ii yaalay HTML kaygu haddii HTML kaygu waa kan sawirkan shalay soo gelina waa kan waxaan rabnaa inaan soo gelino labada cod waxaan leeyahay labada video hadhow laakiin waxa ka horeeya awriya oo codkana marka waxa inoogu qoran folderka uu yaalaa waa SAA Soft sidoo kale namekiisu waxa weeye lesson3.m4a sidaas aynu ugu qoraynaa insha Allahu tacaala kadib waxaan leeyahay folderkii uu yaalay waxaad ka soo qaadaysaa folderka la yiraahdo SAA Soft ayaad ka soo qaadaysaa parameter double jiifa iyo codkii waxaan leeyahay qoraalkii magacii ama title namekii walaha isla markaasi awriyagaagu kadib waxaan leeyahay mbit lesson3.m4a ayuu ahaa baan filaya sidaas ayay sumadiisu tabtaas ayay ahayd sidaad u jeedo kadib waxaan leeyahay tagi ku soo xidh ayaan leeyahay dabeedna waxaan leeyahay save ayaan leeyahay kadib waan rangaraynayaa si aan u arko ayaan rangaraynayaa browserada mid ka mid ayaad ku soo kicinaysaa isla markaasi oo test kaga qaadaysaa inta badan kani waa ka computerku iska wato browserkani oo mid fiican maaha marka waxaan leeyahay Chrome-ka way igu soo kici ayaan leeyahay inkastoo iska xayeysiin badan yahay internetka haddaan iska xidho markaasi waxaan eegayaa sida uu igu soo kaco iyo inuu ii daarmi karo iska badaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaad ku soo dhawaataan casharradeennii aad kala socon jirteen kanaalka SAA Software oo aan idiin soo gudbin jirnay hadahan oo kale
casharkeena waxaanu ku dhiganaynay course loo yaqaano HTML iyo CSS. intaasi waa sida aynu awriga kusoo gelinayno insha allahu tacaala. bal maxaa dhacaya macalin hadiiba HTML-ka waxaan leeyahay laga reebo control ama s ba laga reebo, waxaa noqonayaa unactive insha allahu tacaala. sida arki doonto waxaa noqonayaa unactive ama meeshii waa uu ka tegay. sidaad ujeedo esta marka lagu daro dabeedna save la dhahana waa uu shaqeynaya insha allahu tacaala. waad ujeedaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi. waxaanu kaloo ku eegaynaa insha allahu tacaala sidee ayaan kusoo gelin karaa anigoo isticmaalaya koodhkan codeweg oo ayaan soo gelin karaa video sidaan awriyahan baan soo geliyay. waxaad tegaysaa inter baan leeyahay, kadib waxaan leeyahay taagii fur, waxaan leeyahay video ayaan leeyahay. isagana sidoo kale controls ayaan leeyahay. kadib waa soo xidhanaya, hoos ayaan uga degayaa. waxaan leeyahay iisoo xidh videoskaygii, iisoo xidh ayaan leeyahay. markaan sidaa usoo xidho halkaa dhexe ayaan isagana tegayaa. kadib taag ayaan furanayaa. waxaan leeyahay source ayaan leeyahay equal src oo iyadana source loo soo gaabiyay equal waxay la mid tahay double rotation iyo folderkii uu yaalay sida kaniba uu igu muuqdo. labada video mid ahaan baan soo gashanayaa wakaa sidaad ujeedo. kadib waxaan leeyahay saac softy ayuu ahaa folderka igu jiray. dan waxaan leeyahay parameter double jiifa iyo videoyadan magacooda mid folderka saac softigu wakaa waa folderka ku jiraan aan ku aruursaday ashiyadan aan soo gelgelinayo. good ayaa ku qoran ama maxay ahayd movio ayaa ku qoran. kadib mid kamid ayaan soo gelinayaa. good baan soo geliyo, waxaan leeyahay dot mp4 ayaan leeyahay. kadib waxaan leeyahay parameter, dabeedna save ayaan leeyahay. kadib waxaan leeyahay refresh galee si uu soo galo videogiina. iminka aada ayuu u ballaaran yahay runtii, laakiin waa uu shaqeynayaa. assalaamu calaykum. waxaan u baahanayaa in sizekiisa yareeyo. waxaan leeyahay halkan baan soo kala dhexgelaya. waxaan leeyahay widthkiisa waxaad ka dhigtaa widthkiisa equal ha la mid noqdo double rotation 340. heightkiisana waxaad ka dhigtaa equal double rotation 250 ayaan leeyahay. kadib save ayaan leeyahay. dabeedna waan tijaabinayaa siduu uu soo yaraado. waxaan filayaa weli waa u wen yahay inaan soo yareeyo markaasi weli weeye. waxaan leeyahay balkan 25 ba ka dhig heightkiisa, dabeedna sidaa uu noqdo aan tijaabiyo insha allah. runtii waxa weeye widthkiisana 34 ba ka dhig, zero-ga ka jar. qaadanaya sida uu marka hore usoo saarayo u yaraanayo aad aragto, laakiin dib ayuu soo noqonayaa. sababtana garan mayno. browserka ayaa laga yaabaa inay tahay mid kale baan ku kicino firefoxkan ayaana tusi karaba haddii ay browserka tahay. markaasi uu HTML-kii iminka waad ujeedaa.
videoga aad ayuu weyn yahay sidaad iminka ujeedo. sorry kan baynu meel qaldan ku qornay. waxaynu leenahay copy dabeedna meesha ka baabi'i, halka laguma qorayo, halkan ayaa uu lahaa, weliba si gaar ahaan halkan ayaa uu lahaa. kadib halkan ayaynu u sameyneynaa, ku celinaynaa zerogeedii, halkana zerogeeda ayaynu ku celinaynaa si ay tiradii inoogu korodho. markaasi waxaynu leenahay browserkeeni tag, kadib sidaa ayaynu leenahay. iminka sidaad aragto horu ka qaatay. asalaamu calaykum nabaday daawadayaal, meel kastaad joogtaanba waxaad kusoo dhawaataan casharadii sida oo kale waxaan sameyneynaa insha allahu tacaala inaan mid kale soo gelin karo. waxaan leeyahay sidoo kale taag intaan furto ayaan leeyahay waxaan leeyahay video, sidaas leegun baa loo soo gelinayaa. controls ayaan leeyahay, kadib taagi ayaan soo xidhanayaa, kadib 2 jeer ayaan hoos soo degayaa. waxaan leeyahay waxay soo xidh videogii ayaan leeyahay, halkan dhexe ayaan tegayaa. waxaan leeyahay taagi for source src equal double rotation. waxaan leeyahay soft oo folderkii ugu jiraya parameter dib u jiifa. waxaan leeyahay magacii videoga kale movie ayuu ahaa .mp4 ayuu ahaa. kadib parameterka ayaan kusoo xidhanayaa, kana sidan si leegayaan. waxaan leeyahay widthkiisa ika hayla mid noqda double rotation 340, heightkiisuna hayla mid noqda. waxaan leeyahay double equal double rotation 250. kadibna waxaan leeyahay refresh garee si uu igu soo kaco. calaamada refresh ayaan taabanayaa. sidaad aragto videogii kalena sida ayaan kusoo geliyey. marka insha allahu tacaala waxaan u baahannahay inaan linki kusoo xidhno la kili garaynayo ayaynu rabnaa insha allahu tacaala. linkigaasna isagana sidan ayaynu usoo xidhaynaa. waxaan leenahay taag baynu furanaynaa, kadib waxaynu leenahay link href baan leenahay. waxaan leeyahay linki href equal hala mid noqda double rotation. kadib halkaa ayaynu waxaanu soo gelinaynaa linkii kamida waanu rabno inaynu ku dhufano, hadhowna meel nala tago ayaynu insha allahu tacaala soo gelinaynaa. waxaan ku qoraynaa kanaalkeena magaciisii saaca software si aynu linkigiisa usoo qaadano. markaasi ayaan ku dhufanaynaa. kadib markaan sidan usoo gudagalno waxaanu qaadanaynaa linkigaa sare ayaan leenahay copy. kadib waxaanu ku shubi doonaa insha allahu tacaala, halkaas ayaynu ku shubi doonaa. dabeedna waxaan leenahay kusoo xidh parameterkii, waxaan leeyahay taagiskii. kadib markaan kusoo xidhno halkaa ayaa ka horeysa ayaan leenahay. kadib waxaan halkan ku qoraynaa waxaan leenahay tag software, deedna parameter eedii ayaynu soo xidhaynaa. aynu halkan dambe kaga darsanay eedii ayaynu soo xidhaynaa. wax kastoo aad furto inaad soo xidho eeda ayaynu soo xidhaynaa. waata halkaa ku bilaabantaa sida ku muuqata. kadib waxaan kasoo xidhnay halkaa dambe, deedna safe ayaan leenahay. waxaan leenahay refresh. waa kan sida ku muuqata linkigu inta badan buluug ama casan ayuu noqdaa.
buluuga markaan saa ugu dhufto wuxuu iila tegayaa youtube-kii kanaalka Saaci Software ayuu ila tegayaa, toos ugu xidhmaya. Sidaad u jeedo iminka waa uba tegay kanaalkii. Sidaad u jeedo waa ka linkigii halkayna geeyey, isaguna toos ayuu tegay. Sidaad u jeedo waa ka linkigeena kusoo xidhnay markaasi. sidoo kale page kale oo aad samaysto HTML ayaad ku xidhi kartaa isagana insha Allahu tacaala. casharkeenan afraad intaas ayuu inagaga kooban yahay maanta insha Allahu tacaala. intaan isku soo noqon doono casharka xiga, waxaan idinku salaamayaa idil ahaantiinba. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.